shirkadda dahabshiil group ee gobolka Sool ayaa dib u cusboonaysiin ku samaysay dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkaddu bixiso adeegyadaasi oo ay ka faa'iideystaan bulshada ku nool guud ahaanba gobolku xafiisyada shirkadda ayaa loo dhisay dhismayaal kala duwan oo casri ah kuwaas oo isugu jira xawaaladaha laga xawilo lacagaha telefoonada gudaha iyo dibadda internetka qaybta bangiga oo dhismaheedu haatan marayo heer gabagaba gudoomiyaha shirkadda dahabshiil ee gobolka Sool Cabdiqani Awdaahir ayaa faahfaahin ka bixiyay dib u cusboonaysiinta dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkaddu ku samaysay sanadkan cusub ee 2020ka waxaan joognaa xafiiskii dahabshiil laascaanood shirkaddu sanadka cusub waxay furtay dhismayaal cusub oo runtii ay magaalada ku soo kordhisay dhismahan oo hadda G+1 ah oo runtii xafiisyadii Somtel xawaaladii qaybtii bangiga oo insha Allah hadda oo process garaysan oo aan dhaqso u furi doono adigu hadda bilowgeedii aan wadno insha Allah wixii bisha ka dambeeya shaqayn doono waxaan jecel lahay qaybaha kale dadku de bulshada reer Laascaanood wala socdo laakiin qaybta bangiga oo mar dhow aan si fiican daafuri doono haddana si yaro kooban u shaqaysa inaan uga faa'iideyno dadka ganacsatada ah ee ganacsatada waaweyn ganacsatada dhexe iyo ganacsatada soo koraysaba maalgelinta runtii sida aad ogtihiin bangiyadu waxay ka qayb qaataan maalgelinta ganacsiga iyo kor u qaadista kobceeda yani dad badan oo ganacsato ah oo raba mashaariic badan oo marka aan u suurta galeyn cash flow-goodu inuu filaado bay bangiyadu ama warshadaha keenayaan ha noqoto ama dhismayaal cusub ha noqoto ayay bangiyadu muhiimadoodu inay saboodaan oo tartiib hadhow lacagta uga qaadaan ujeedadoodu weeye taas runtii bangigana oo ah maxaan ku sheegay fursad ganacsi dadkana kabis iyo horkac oo ah insha Allah marka waxaan leenahay customer-ka soo dhawaada gacmo furan baa dahabshiil ku soo dhaweynaysaa dahabshiil group ee isku dhammaystiran waxaa isla jira barnaamij maxaan ku sheegay bangiga ku hoos jira awalo microfinance la yiraahdo dadka runtii ganacsiga wixii 500 ilaa 2000 ka bilaabanaya wax ku kabanaya oo shirkadu ay runtii ku gacan qabanaysa muddo fiican buu shaqeynayay dadka ganacsatada ayna runtii aad bay maxaan ku sheegay uga faa'iideen akoonadii aan hadda furayno akoonkii DMT hore u shaqeynayay iyo kii DBI oo internationalka dadka raba inay dibadda wax ma garanaysa ama u dirsadaan ama ay kala yimaadaan insha Allah iyagana waa u diyaar hadda adaaladno akoon furista hadda waa socotaa marka waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waan idin mahadcelinayaa sidoo kale shirkaddu waxay dib u habeyn iyo casriyeyn ku samaysay adeegyadii kala duwanaa ee dhanka internetka gaar ahaan adeegyada 2G-ga 3G-ga iyo 4G-ga iyadoo sidoo kale ay shirkaddu u samaysay macaamiisheeda qiimo dhimis dhanka internetka Anwar Cali Maxamed madaxa shirkadda Somtel oo kamid ah Dahabshiil Group ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen qaybaha internetka oo ay tayeeyeen xawaarihiisuna iminka aad u sareeyo la hadlaya gudoomiyaha shirkadda Somtel Laascaanood gobolka Sool Anwar Cali Maxamed waxaan ka hadlaynaa haddaan nahay shirkadda Dahabshiil Group gaar ahaan farceeda Somtel arrimo badan aan soo kordhinay oo ku saabsan shirkadda iyo tayeen badan oo la tayeeyay haday tahay xagga internetka xagga 4G-ga xagga 3G-ga dhammaan waxaan keenay qalab aad iyo aad u sareeya fiber optic baan rakibnay bulshada weynta gobolka Sool waxaan rabnaa inaan u jeedinaynaa inaan keenay qalabkii ugu quality sareeyay ee xagga internetka internetkaas oo noqday xawaarihiisu mid aad iyo aad u sareeyo faastigiisuna aad u sareeyo awal internetku uu fiina hadeerna waa sii laba jibaarnay waxaan bulshada weynta dadweynaha ugu bushaareynaa inaan u hayno internetkii xawaarihiisii oo la kordhiyay fiber optic oo loo rakibay haday tahay internetka guryaha lagu xiriyay oo aan hadda casriyeynay oo tayeynay waxaan kala haynaa 3G-gi 4G-gi Wi-Fi-yadii dhammaan agabyadii ay shirkadu u baahnayd oo dhan waanu haynaa
waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaad kala kulmi doontaan soo dhaweyn iyo aad iyo aad u sareeya ugu dambeyn shirkadda Dahabshiil Group ayaa macaamiisheeda guud ahaanba gobolka Sool waxay ugu bishaaraysay inay u sameysay qiimo dhimis adeegyada ay shirkadaasi bixiso.